waxaad sameynaysaa markii aad rabto inaad isticmaasho Canva free ah markaas oo wax lacag ah aanan lagugu xijeynaynin. Just waxaad sameynaysaa muuqaalka description-ka ayaa tegaysaa, linkii meesha ayaan kuu dhigayaa, meeshaas baad ka raacaysaa insha Allah. Linkiga toos isaga kuu geey doona, step-ka aan maraysan aniga kuu sharxi doona insha Allah. haddii aad doonaysa inaad qurux badan aad samaysato janaalka subscribe saaro, sidoo kalena muuqaalka inoola gare si uu u faafo. haddaba waxaan sameynayaa, waxaan soo furanayaa browserka ama Google Chrome soo taqaanid. meeshaan waxaan ku qorayaa dalnuurshe.com, bad adiga laakiin waxaa kuu soo dhigi doonaa description-ka insha Allah. ha ka walwalin. meeshaan dalnuurshe.com markaan ku qorto website buu igey doonaa. website-ka markuu uu geeyo waxaan sameyn doonaa insha Allah, ma isticmaali doonaa marka linkiga aan u soconay ama hadafka aan lahayn. website-ka markuu sidoo kale kugu soo qabto adiga website-ku ma geyn doono si direct ah, postiga buu ku geey doonaa linkiga. markaas waxaad sameynaysaa waad ku dhifanaysaa. haddaba adiga qaybtan koreyso ay ku qoran tahay qaybtan koreyso ay ku qoran tahay saad u jeedo click here to download. qaybtaas adiga kuma qosayso, iska daa, because already inaad soo degsataa fila Play Store ka soo degtay. qaybta waa qaybta lagu soo degsanaya, iska daa marka hadii aad Play Store ka soo degsatay. markii aad isticmaalayso Canva Pro ama linkigan aad raaci doontaan mar uu Canva kugu jiro oo ku register gareysan yahay weeyaan, adoon soo degsan insha Allah inta taabanin. marka waxaad sameynaysaa qaybtan ay ku qoran tahay halkan kala deg ama halkan taabos aad u isticmaasho Canva Pro. meesha ay ku qoran tahay Dalmar Teach aadama ku qoran saa u jeedo Dalmar Teach baad taabo doontaa insha Allah. Dalmar Teach marka taabato wuxuu ku geey doonaa page-ka ama meesha aad kala digileed si free ah lacag la'aan ah, anigana ka caawin doona insha Allah. page-kaas markuu ku geeyo waxaad taabo doontaa meel ay ku qoran tahay download, meel ay ku qoran tahay taabo doontaa insha Allah. aniga ku tusaayo oo ku calaameynayo sidaan buu kugu soo bixi doonaa. sidaan markuu kugu soo baxo tartiib baa u soconaysaa. meelo badan bay download ku qoran tahay. hadda intoo kale ay ku qoran tahay haddii aan ku calaameeyo si hadda aad u jeedid waa kasaa waa iska dii kartaa. haddii aad rabto meelaha haddana meel kale kusii qoran tahay kulley adiga halkaa meelaa kaa badan ba halkaa meelaa download ay ku qoran tahay. haddii aad taabato soo degsanaysaa kabacdi inuu kuu shaqey doonaa. السلام عليكم kusoo dhawow janaalka Dalmar Teach. tani haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee aad soo booqato janaalka Dalmar Teach, fadlan waxaan kaa codsanay inaad janaalka inaad subscribe inoo saarto, sidoo kalena aad inoo like gareyso, muuqaalkan aad inoo share gareyso si uu u gaaro ama uu ugu baaho asxaab badan oo markaasi yacni ka faa'iideysana waxyaalaha aan kusoo gudbino janaalka. okay. maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeeni koowaad ee waxyaalaha graphic design-ka la xiriira ama markaasi graphic design-ka ka mid ah. haddaba cashirkeena maanta wuxuu quseeyaa ama maanta wuxuu yahay sidee loo sameeyaa ama sidee u sameyn karaa YouTube thumbnail aad iyo aad u qurux badan oo markaasna soo jiidasho leh. haddaba anigoon computer isticmaaleynin, haddana sidoo kale aan Photoshop isticmaaleynin, haddana sidoo kale waqti badan aan ku bixinaynin, anigoo teleefankayga isticmaalaya, haddana application casri ah isticmaalaya, wax qurux badanna sameyn kara, waqti yarna ku bixin kara. taas qof walba uu isweydiinayaa. haddaba aniga ka daba geenayo waa wax iska fudud, wax hadda saas u weyn ma ahin. waxaad isticmaalaysaa ama aad soo degsanaysaa application-kan ay ku qoran tahay Canva. application-kan ay Canva ku qoran tahay soo degsanaysaa. application-kan linkiga lagala soo degayo waxaan ku dhigayaa qaybta hoose ee description-ka. qaybta hoose description-ka ayaan ku dhigi doonaa insha Allah. haddii aan aad raacdo waad soo degsanaysaa, kadib markaad soo degsato waad soo gelaysaa. hadda anigu ii degsan yahay. adiga marka oo soo degsato oo gudaha uu kuu soo galo waa register gareynaysaa ama gmail-ka ku xireynaysaa. wax hadda saas weyn uma baahno oo inaad sameysido magacaaga, phone number-kaaga iyo waxyaalaha saas si badan uma baahna. just waxaad sameynaysaa gmail-kaaga baad ku register gareynaysaa, kadibna yacni saan buu kuu soo noqonayaa. afka dashboard-kiisa waa sidaan. haddaba markaas sidaan usoo gasho waxaad qaadanaysaa ama markaas aad sameynaysaa mowduuca maanta adiga u baahan tahay. for example haddii aad YouTube banner aad rabto waa kana meeshaan saaran yahay. haddii aan ku calaameeyo YouTube banner haddii aad rabto waa kana meeshaan saaran yahay. haddii aad meeshaan ka weysana waa qori kartaa, no way, dhib ma lahan. sidoo kale YouTube thumbnail maanta cashirkeena uu quseeyo isagana waa kana uu ku xigaa meesha saaran yahay, kama maqna. waxyaalaha qaar marka aad rabto inaad meeshaan ka weysaa laga yaabaa. hadda video waa kana sidoo kaleeto history haddii aad sameynaysid waxyaalahan waa iska badan yihiin. Facebook post haddii aad sameynaysid oo qurux badan, cover Facebook haddii aad rabtid, Instagram history haddii aad rabtid,
logo design haddii aad rabtid, tan waa mid aad iyo aad u muhiim ah insha Allah. Dhowr cashir oo isku xiga baan ka bixi doonaa insha Allah haddii la yiraahdo, weliba iyagoo designo kala qurux badan ama kala duwan leh. haddaba markaad meeshan baad ka raadinaysaa waxaad rabtaa, haddii aad weysana si directly meeshaas baad ugu qoraysaa, dhib ma lahan. haddaba maanta anaga waxaasoo dhan nama quseeyaan. maanta targetkeena waxaa waaye sideen u sameyn karaa youtube thumbnail aad iyo aad u qurux badan marka dadkana soo jiida kara. ila soco, ha iga harin. mar labaad waxaan ku xasuusinaa inaad janaalka subscribe inoo soo saarto. wax weyn kugu qaadanayso, kaliya waa 5 sekin si uu janaalka u baaho asxaab badan oo u gaaro muuqaalka. waaya haddaba waxaan ku dhafanaynaa mawduuca maanta arabna inaan sameynaa baan ku dhafanaynaa. markuu sidaan oo kale noogu soo baxo, haddaba adiga sidaan kugu soo bixi maayo, waxyaalahan ku quruxda badan dhan arki maysid. waxyaalo oo aad iyo aad iskaga liito, aad u qurux badneen camal oo ku soo saaraa. waxyaalahan quruxda badan wuxuu kaa saaraa wax la yiraahdo bro oo kaa saaraa oo kaleeto. waxaa arka dadka inta badan big artska waxaa isticmaala, lacag buu kugu xijeenayaa. haddaba marka sidee anoonan lacag bixin uga faa'iideysan karaa oo u sameyn karaa sida hadda aniga camal, wax allaal waxaan rabaa hadda habaysan karaa, edit garaysan karaa, wax lacaga iguma xijeenayo. haddaba si aad taas aad u heshid, waxaad sameynaysaa linkiga descriptionka ah kuu soo dhigaya. markaad raacdo laba qayb oo leeyahay, qaybta koreeto waa soo degsanaysaa soomaan abka, qayb kaloo hoosoo leeyahay akhri, waxaa ku qoran halkan kala deg Canva Pro. markaas Dalmar Teach baa meesha ku qoran. Dalmar Teach-kaas baad ku dhifanaysaa. kadib marka aad ku dhifanayso waa inuu applicationka uu kugu jiraa oo ku register garaysan yahay. understand inaa fahantaa rajeynaya. kadib marka Dalmar Teach aad taabato, applicationkii buu ku geynayaa, adiga waxyaalo badan buu kuu soo saaraya. okay baad dhehaysaa. marka dambe uu kugu xirmaya. markuu kugu xirmo waxaan oo dhan open bay ku yihiin. hadda for example fiiri, haddii aan idin calaameeyo, waxaa hadda meesha ii saaran oo dhan waa bro. waxaa hadda meesha ii saaran dhan dhammaantood waa bro. sa hadda ujeedaan kan haddaa aragtaan, sidoo kale maxaa la kan xataa naftarkiisa sidoo kale, wax kastoo waa bro. haddana waxaan rabaa inaan isticmaalo anigoo lacag dhiibin. waaya haddaba linkigaas baa ka heli doontaa insha Allah, descriptionka baan kuu soo dhigi doonaa. waaya marka waxaan qaadanaynaa maanta, ama aan ku qaadanaynaa, maadaama waxaan tusaale leeyihiin, adiga hadhow mid qurux badan baa dooran doontaa insha Allah oo youtube-kaaga views badan kuu soo jiidi kara ama waxyaalo qurux badan. haddana waxaan iska qaadanaynaa kan baa iska qaadanaynaa. haddana kan wuu raadinayaa. marka kan markaa iska qaadano, saan buu noogu soo baxayaa learn digital marketing. meeshaan ku qoran digital marketing baa lagu xaysiinayaa, bara digital marketing. marka adiga waxaad rabtaan ka bedeli kartaa, waxaad rabtaan kusoo kordhi kartaa. haddaba sidee? tusaale hadda waxaan taabanayaa kan baan taabanayaa, learn digital marketing baan taabanayaa. markaa taabto waa kala qoraal waa hadda meeshaas digital ay ku qoran tahay. saas marka u taabto, just waxaa sameynayaa, meeshaan baan imaanayaa. meeshaan markaa imaado, edit ay ku qoran tahay. meesha edit ay ku qoran tahay markaa imaado, cafwa meel kale galay, edit meesha ku qoran tahay markaa imaado, waxaan baan iska tirayaa. markaan iska tiro, haddaba waxaan ku qoranayaa wax alaala waxa aniga aan rabo. Dalmar baa hadda iskaga qoray, for example tusaale ka soco. meeshaan kaleetana sidoo kaleeto leen ay ku qoran tahay, isla sida le waa edit baad imaanaysaa, waa iska tiraysaa waxaad rabto. markaas adiga muuqaalka uu ka hadlayo baad ku qoranaysaa. hadda wanaagsan baad iskaga qoran. anaga tusaale ahaan wanaagsan baan iskaga qornay. waxaa maadaama ay yihiin tijaabo marketingkan, haddana inaad bedesho haddii aad rabto, meesha baa taabanaysaa, waxaa rabtaa ku qoraysaa. waa isku mid, same thing waay, wax hadda saas u weyn ma ahan. haddii aad rabto inaad farta iska bedesho kaleetana wanaagsan boo kale aad taabanaysaa. waatanaa meeshaan ay ku qoran tahay, haddaba meesha ay ku qoran tahay fontis baad imaanaysaa. markii aad imaado waad ku dhifanaysaa. waxyaalo badan buu kuu soo saarayaa inta far allaala. markaas tii adiga isdhahdo fartaan allele fartaan way fiicanta, marka tii aad isdhahdo baad qaadanaysaa. hadda tusaale anaga waxaan iska qaadanaynaa tan waaweynta iska qaadanaynaa. automatically waa kasoo isbedelay, waaweyn buu isku bedelay, yarar noga dhig haddana. waayahay intaas markaad sameyso, tusaale qofkan oo kalena iska remove taartaa, delete baad dhehaysaa. meesha markaad taabato, sawirka markaad taabato, delete baad dhehaysaa. haddaba marka sideen aniga meeshaan sawir aan soo geliyaa? haddaba waxaa rabaa inaan sawir aan soo geliyo ama sawirka youtube-kii saaran.
tusaale haddii aad looga waxyaalo noocaas aad gelinaysid waa iska caadi. haddii markaasi sawir caadi oo aad leedahay soo gashay rabtidna meelahan baa sawir ka raadinaysa oo kaleeto. hadda aniga sawiradan edit gareeyo oo kale markaasi aan mashruuc ku sameynayay baa mid kamid ah iska soo qaadanaysaa. hadda waxaa soo qaadanaysaa oo kale kan oo kale iska soo qaadanaysaa. kan oo kale markaad iska soo qaadato aad u dheeraad kan waa wax la isbarbar dhiga waaye. waad iska jaraysaa saan baa dhehaysaa markaad dhahdo soo kale iska dhehaysaa. kadib meesha kan yila keenaysaa background oo sawirka leeyahay kii hadayana background male. haddaba waxaa u baahan tahay inaad backgroundka iska jarto. sidee iskaga jaraysaa? meeshan baa taabanaysaa ay ku qoran tahay meesha ay effects ku qoran tahay baa taabanaysaa. kadib markaad taabato waa kana bg remove background remove aa loo soo gaabshay. adiga marka haddii aadan website inta tigin linkiga aadan raacin oo aadan Canva Pro-ga dalmar tiish ay ku qoran tahay aadan habaysanin meeshan kuma shaqeynayso lacag bay ku weydiinayaan. haddaba marka waa inaad taas heshaa muhiim bay ku tahay. waaya backgroundka baan ka removeynaa. haddii aad rabto inaad quruxsato oo kuwana ay kan meesha ku qoran yihiin markaasi adiga wax allaala wax qurux badan adiga samaysan kara markaasi adiga dooqaaga tartiib waliba wuu raadinayaa. marka backgroundka marka oo remove waa kaasaa si nadiif oo backgroundka oo kugu removeay. waxaa kuu soo hara marka waxay tahay waxyaalahan oo kaleeto dakan oo kaleeto oo madowga xariiqanta haddii aad rabto iska bedeli kartaa. waxaad ka dhigi kartaa meeshan baa taabanaysaa ee ku qoranta balasta ee ku qoranta taabanaysaa blue oo kale ka dhigaysaa adiga. meeshan sida rabto wax maamulinaysaa ma fahanti. mid baad u bedeli kartaa. hadda kan oo kale ay ku qoran tahay iska bedeli kartaa haddii aad u baahan tahay edit aad taabanaysaa qoraalka bedelaysaa. haddana colorka meesha laga bedelo waatana iyadana wax weyn maahan color baa ku qoran. waxaan waa very simple waa aad bay u fudud yihiin. marka wax qurux badan haddii aad samaysatidna waxay kaa caawinaysaa markaasi inaa yacni wax walba ay ku qurux badnaadaan markaas ay ku hagaagaan. haddaba markii aad sidan u samaysatid youtube thumbnailkii aad u qurux badnaa oo sawirkii wixii aan kusoo darto magacii aad bedesho adiga aad designkan haddii aad tusaalaad fiiri haddii aad rabto inaad bedesho backgroundkan jaallo kale iska bedesho rabto geeska aad taabanaysaa aad meel kamid ah sawirka color aad taabanaysaa buluug baad ka dhigaysaa haddii aad doonayso. waxaad ka dhigaysaa balastan baad taabanaysaa. markaa balastan taabato meelahan baa ka bedelaysaa wax oo asiga markaas kusoo baxaya baad raadinaysaa. hadda fiiri kan oo kaleeto kan oo kale hadda fiiri wax aad markaas asiga kusoo baxaya raadinaysaa. hadda anaga kan baa iska qaadanaynaa. markaa raadiso markaasaa wax hadda ka dhiman malaha. marka wixii kaloo sharaxaada haddii aad u baahato meeshan aad iska taabanaysaa. meeshaan markaad taabato meeshan element ay ku qoran tahay meesha ay ku qoran tahay imaanaysaa. meesha waxyaabaha laga sarjin garay waxaa waa wax markaas ay koonada aad rabto oo aad ka sarjinaysaa. tusaale oo kale waxaad rabtaa oo kale subscribe button oo kale aad rabtaa ama follow button oo kale aad rabtaa waa qoraysaa. meeshan buu kaaga soo baxayaa waxyaalo badan oo markaas button follow quseeya. yaro network xun amarayna wuu raadinayo cafwan kaas qadka xun. marka ama waxaa kaloo dhigi kartaa xitaa share button like button bedinta oo tijaabi kartaa. adigu ku shaqeynaya kulli adigu ku shaqeeyo markaas mid qurux badan baa ka dooranaysaa gees baad ka saaranaysaa easy. waaya haddaba markii aan sidan u samaysto wixii oo dhan aan habaysto oo edit garaysto markaas wax qurux badan aan ka dhigto sidaan u save garaysanaa. meeshan baa taabanaysaa falaarta ay ku qoran tahay ee hoosta u jeedo then click baa dhehaysaa falaarta baa riixaysaa si directly uu kugu safeyaa markaas uu kugu soo degayaa kadibna wuxuu kuu soo galayaa gudaha telefoonkaaga. insha allah casharka xiga waxaan ka dhigi doonaa hadduu ila yiraahdo sida loo sameeyo business card aad u qurux badan markaas aadna haddii aad doonto ku shaqaysan karto oo website-yada freelancer looga shaqaysto oo xirfadaha lagu soo bandhigo inta tagto iska diiwaan geliso xirfadahaaga inaad car business aad sameyn karto camal iska diiwaan geliso oo meesha aad kusoo bandhigto waxyaalo qurux badan kadibna lagaa soo dalbado adina aad lacag ka sameyso si free ah baa janaalkan ugu baranaysaa birna haddii aad doonto ku shaqaysan kartaa. marka waxaa si sharaf ah mar labaad kaaga codsanayna janaalka inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad inoo laagarayso. muuqaalkoo la laagareeyo waxay faa'iido u tahay muuqaalku u baahayaa dad badan oo u baahan buu gaarayaa. insha allah tani iyo kulanti dambo insha allah.